sidaad arkaysaan maanta waxay ka shidan tahay Afgooy waa maalin kale oo aad u qurux badan dalxiiska waa haay bahda Rajo Sports maadaama maalmahan kala maqneen waxaan ugu talagalnay inaan muuqaal qurux badan ooga soo diyaarino Afgooy dalxiiska Afgooy ka shidan tahay maanta oo Jimco ah waxaan soo dalxiis tagnay Afgooy kabankii qaacigana kama marna soo raaca xoogaa soo soconay sidaad arkayseen qeybo aad u fara badan soo marnay beerta waxa waaye maadaama ay aad u weyn tahay qeybahaas kale waa soo duubi kari waynay oo waxaad moodaa in waqti badan ay u baahan tahay in beerta dhan la soo wada arko meelahaana arkaysaan dhan waa qeybo kala duwan qeybo waxa soo marnay dalxiis loogu talagalay qeybo kale hadeer halkaan rabnaa sidaad arkaysaan gadaasheena qaaciga meeshaas ka shidi rabnaa insha Allah nala socdo sidaad arkaysaan qaaci ayaa hadeer la bilaabi rabaa ka hor inta aysan bilaaban waxaan rabaa in hal iyo labo ay dhahaan Axami iyo sidoo kale Muune sidoo kale Cabdi aan horta kaamirada waxaan u hayo saaxiibkayga Janga ama Xasan Ali Abubakar sidaad u taqaanaan Ahmed maanta waxaa soo booqatay ishe Afgooy inaan soo booqato waxaa ka soo baxdeen balcada ka soo baxay bal ka waran dalxiiska maanta sida aad dareemayso maasha Allah jawi degan oo wanaagsan aad dareemayaan maanta waxaa kala kacsanahay Afgooy waxaan u maleeyahay galanka dambana inaa qoryooli ka dhici doono haddii Ilaahay yaraaho gooshayna waa sii socotaa laakiin ma aan ka gaarna insha Allah waayahay nuune suru oo sheegay ilaa iyo qoryooli inaa soconaysaan ilaa Kismaayo bal ka waran dalxiiska maanta maadaama aad ku sugantihiin in beerihi Afgooy beer kamid ah bal ka waran dalxiiska sidoo ay dareenka oo horeen horta maanta aad u faraxsanahay waxaan dhex joognaa degmadii wacneyd ee quruxda badneyd degmada Afgooy aday kulay waa dareemi kartaa adoo balcad ka soo baxay maanta jawi ku qaadanayo degmada Afgooy maasha Allah aad u faraxsanahay waana sii rajeynaynaa inaan intaan ka sii badan aan sii dhaqaaqno maasha Allah muddo waxaa ka tumayseen oo qaaciga ka tumaynay degmada balcad maanta waa ka soo baxdeen oo degmada Afgooy ku sugantihiin ma laga yaabaa inaad degmooyin kala booqataan oo qaaciga sii wadaan oo ilaa iyo aad gaarsiisaan meel kale oo aad u fara badan laga yaabaa hadda waxaa aad u rajeynaynaa adiga beledweyne inaad tagno maasha Allah beledweyne hiiraan aad u rajeynaynaa sida kale Jowhar iyadana webigeeda inaan ku soo liin cabno iyo biyaha webiga maasha Allah aad soo cabno bal ma laga yaabaa in dad kale aad ku soo dartaan oo fankii aad balaarisaan oo hablo iyo aad ku soo dartaano fanku uu noqdo mid markaas intaan ka sii balaaran laga yaabaa maasha Allah waa rajeynaynaa taas waana ku hami weynahay jil oo hadda soo baxaya jiro aan gacanta ku hayno insha Allah muddo bilooyin gudahooda manaankay soo bixi doonaan fankana saan waa ka balaaran doonaa insha Allah oo maadsan tahay bal ka waran farqiga u dhaxeeyo marka aad ka tumaysaan degmada balcad iyo maanta aad ka soo baxdeen degmada waqti xadarkan aad ku sugantihiin Afgooy bal ka waran farqiga u dhaxeeyo marka degmada joogtaan oo qaaciga ka tumaysaan iyo marka halkaan imaadeen farqiga والله horta marka gurigaaga joogtid marka meel kale aad joogto isku mid ma aha waa dareema kartaa naftigaada maadaama safar socdaal dheer aad soo galaysid adoo jactarsan oo daalan aad imaayaysid isku hal ma noqon kartiin laakiin waa fadhigiisa waa maasantahay Cabdi maanta waxaad safarka ku weelinaysay fanaaniinta degmada balcad kuwaas oo u soo ambabaxay in ay jawiga ku qaataan degmada Afgooy bal ka waran dalxiiskaas ay soo aadeen adina qayb ayaad ka aaday dareenkaaga bal ka waran
alxamdulilaah ilaah baa maanta iska leh maanta aan joogno beerta Afgooye waanu ku faraxsannahay maasha allah dalxiiska aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay aadaan nool soo dhaweeyey Afgooye soo dhaweynta aaday u wanaagsan tahay alxamdulilaah Ramadan